بسم الله الرحمن الرحيم ومركله يا مادتين كيمستريغا يعني waa macallin Abdullahi Sheekh waxaan ka bilaabaynaa waa classka form 4 waxaan ka bilaabaynaa chapter 4 syllabuska markaan fiirino chapterka dhacaya chapterka afraad chapterkaasi magaciisa waxa la yiraahdaa energy in chemistry chapterka markaan ka hadlayno ama chapter contentskaasi markaan chapterka fiirino waxyaabaha uu ka kooban yahay wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa 4 topic ayuu ka koobnaan doonaa topic koowaad waxaan u bixinaynaa enthalpy change oo 4.1 ah topic labaad ama 4.2 standard enthalpy change ama standard conditions saddex oo 4.3 ah bond making iyo bond breaking and enthalpy change 4.4 measuring and calculating enthalpy change afarta topic ayaan ku arki doonaa waxa loo yaqaano chapterka gudihiisa waxaan ka bilaabaynaa maanta 4.1 oo ah enthalpy change enthalpy kelmadda ah waxay ka soo jeedaa kelmad Greek ah enthalpos kelmaddaasi marka aan turjino marka aan macnayno waxay la macno noqonaysaa energy marka halkan enthalpy ka leenahay waxay la macno tahay inagoo leh energy change waayahay tamarta isbedelaysa haddaba at the end of the lesson learners should be able to ashirka markuu dhamaado waxa laga rabaa bartaha iyo ardayga explain that all chemical reactions involve transfer of energy inuu sharxu sheego dhammaan chemical reactionada dhacaya inay ku lug leeyihiin tamar gudbaysa exothermic iyo endothermic inagoo kala bixin doona qodobka labaad draw inuu sawiri karo enthalpy profile wajahada sawirka lagu yaqaano exothermiga iyo sawirka lagu yaqaano endothermiga inuu sawiri karo saddex describe enthalpy change as exothermic and endothermic inuu sheegi karo tamarta soo baxaysa inay tahay exo iyo inay tahay endo tamar qaate iyo tamar bixiye inagoo isticmaali doona negative value iyo positive value waaya enthalpy change markaan leenahay ama aan ka hadlayno waxa la yiraahdo tamarta isbedelaysa hal qodob baan xasuusnaanaynaa waxa la inaga rabaa inaan ogaano in adduunka aan ku noolahay universe waa dunidii adduunka aan ku noolnahay waxaan u qaybinaynaa laba qaybood si aan u fahamno kelmadda enthalpy change tamarta isbedelaysa dunida aan ku noolahay universe waxaan u qaybinaynaa laba qaybood waxaan u qaybinaynaa qayb la yiraahdo system iyo qayb la yiraahdo surrounding system markaan leenahay waxa la oranayaa reacting materials waa shayadii falgalayay waa shayadii falgalku uu ka dhexdhacayay iyo tamartoodii surrounding markaan leenahayna anything else waa shay kasta apart from the system oo ka soo hara systemka tusaale ahaan haddaan ka hadalno haddaan hadda soo qaadano waxa la yiraahdo a beaker haddaan weel soo qaadano weelkaasi haddii uu falgal dhexdiisa ka dhacayo weelka dhexdiisa waxaan u bixinaynaa system waa reacting materials waa shayadii falgalka sameynaya waa weelka gudihiisa weelka wixii banaanka uga baxsan oo xataa ay ku jiraan qofkii falgalkaasi maamulayay waxaan u bixinaynaa surrounding waxaan leenahay waa wax walba oo ka soo hara systemka surrounding waa hareeraha waa deegaankii waaya qaabkaasaan u maamulaynaa adduunka waxaan u qaybinaynaa system si aan u fahanno enthalpy change-ga system iyo surrounding systemku waa shayada falgalaya ee gudaha ku jira meesha falgalku ka dhacayo surroundingkuna waa hareerihii haddaba marka halka laga hadlayo waxa jira waxa la yiraahdo energy transfer isku gudub tamar ah ayaa jiraya isku gudubka tamarta inagu waxaan si aan u fahanno tamarta gudbaysa ma waxay ka imanaysaa systemka oo waxay aadaysaa surroundingka mise waxay ka imanaysaa surroundingka oo waxay aadaysaa systemka energy transfer waa sida tamartan inay ka timaado shayada falgalaya oo banaanka aado ama tamartan inay ka timaado banaanka oo shayada falgalaya soo aado marka reactionkeena waxaan u qaybinaynaa laba qaybood waxa la yiraahdo exothermic reaction falgal tamar bixiye exo waa out iyo endothermic reaction falgal tamar qaata falgal tamar bixiya iyo falgal tamar qaata labadaasaan u qaybinaynaa falgaladeenii exothermic iyo endothermic exo waa out thermic waa energy waa heat indona waa in number 1 waxaan ku bilaabaynaa exothermic reaction
falgalka la yiraahdo exothermiga ayaan ku bilaabaynaa exothermic reaction ka marka laga hadlayo falgalkaas waxaan ku define gareynaynaa xagga definition kiisa is a chemical reaction waa falgal chemical ahaaneed that produces oo soo saara ama waxaad isticmaali kartaa kelmadda ah releases heat waa falgal tamar bixiya marka in a form of heat tamartu waxay u baxaysaa heat ahaan bay u gudbaysaa waayahay waxyaabahan isweydiinayno ee inaan fahanno aan u baahannahay waxa ka mid ah marka maadaama layna yiri exothermic falgalka la yiraahdo waa falgal tamar bixiya exo waa out thermic waa heat exothermic maadaama aan ku sheegnay waa falgal tamar bixiya waxaan isweydiinaynaa tamartan la bixinaya halkay ka imanaysaa which direction halkay se aadaysaa qaybtay aadi doontaa tamartan laga hadlaya ee tamar baa la bixiyay la leeyahay waxay ka imanaysaa from the systemku waa reacting materials falgalkii dhacayay bay ka imanaysaa tamartaasi waxayna aadaysaa directionka fiiri surrounding bannaankay aadaysaa from the system to the surrounding bannaankay aadaysaa falgalka nooca u shaqaynaya ayaa waxaan u bixin doonaa wax loo yaqaano exothermic reaction exo waa out thermic waa heat waa tamar bixiye waayahay tusaalayaasha exothermiga haddaan fiirino waxaan ka horraysiinaynaa chartiga yar sawirkaasi meesha inooga muuqda wuxuu inoo sheegayaa energy lost during a reaction haddii bogoska dhexdiisa uu yahay systemkii meeshii falgalku ka dhacayay fallaarahan fiirinaynaa fallaaraheennu waa out bannaankay u baxsan yihiin maadaamay bannaanka u baxsan yihiin bannaano baxaasi wuxuu sheegayaa in tamartu ay ka tegayso falgalka ayna aadayso bannaanka tusaalayaashaan soo qaadanna waxaa ka mid ah oxidation reactions falgallada oxygen ku darista sida combustion of fuels gubashada shidaalada haddaan tusaale soo qaadanno combustion reactions falgallada la yiraahdo ama falgallada gubashada la yiraahdo mar walba waxay bixiyaan heat tamar bay bixiyaan in a form of heat tusaale waxaan soo qaadanay methane oo la falgalay oxygen meesha waxa ka soo baxaya carbon dioxide iyo water plus energy-daasi marka waa tamartaan leenahay exothermic falgalka meesha ka dhacaya combustionkaasi tamarta uu bixinayo waayahay falgalkeena labaad waxaan odhanayaa respiration waa habkii cunnada looga saarayay tamarta cunnada markaan isticmaalno jirka geyno waxaa lagu darayaa oxygen hadhow waxaa ka soo baxaya carbon dioxide water iyo energy-dan markaa waa midda aan uga baahnayn inaan cunnada ka soo saarno waa tamarta aan hadhow ku shaqaynayno ku dhaqdhaqaaqayno ability to do work waayahay tusaalaheena xiga ee noqonaya combustionka ee waxa loo yaqaan exothermiga waa water with quicklime haddii biyo lagu daro waxa loo yaqaan calcium oxide hadhow say u samayso waxa la yiraahdo calcium hydroxide falgalka saddexaad oo ah neutralization reaction falgallada la yiraahdo dhexdhexaadinta waa acid iyo alkali markay isla falgalayaan haddaba meeshaasi waxaan isweydiinaynaa labadii tusaale hore ee ahaa combustionka waa wax la garan karo hadduu shay hadday gubanayaan in ay heat bixinayaan waa waxaan dareemi karno laakiin falgalkan ah water with quicklime iyo falgalka ah neutralization reaction maxaa lagu garan karaa inay tamar bixinayaan waxaa lagu gartaa touching falgalkaasi meesha uu ka dhacayaa la taabtaa gacantaa la saari gacanta marka la saaro falgalkaasi meesha uu ka dhacayo hadday gacantaadii kurayl dareento ama diirimaad falgalkaasi waa exothermic cagsiga hadday gacantaadii qabow dareento falgalkaasi waa endothermic oo maxay sheegaysaa qabowga iyo kulaylku haddii gacantaadu markaad falgalkii taabato ay diirimaad dareento wuxuu falgalkaasi sheegayaa isagaa tamar bixiyey oo gacantaadiibuu tamar soo gaarsiiyey that's why aad diirimaadka u dareemayso balse haddii qabow aan dareenno isagaa tamar inagala baxay falgalkaasi sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa using thermometer in la isticmaalo thermometer rising temperature xilliga thermometerka la isticmaalayo hadduu falgalku exothermic yahay thermometerkaasi waa inuu kor u kaco uu kor aado waa yahay falgalka ciwaankeenna ama cashirkii ciwaankeena labaad endothermic reaction endo waa take in falgalka tamarta qaata waxaan ku define garaynaynaa is a chemical reaction waa falgal chemical ahaaneed that absorbs oo qaata ama gain hela heat tamar hela falgallada tamarta qaata aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah cooking of food haddii cunno la karinayo cunno karisku waa tamar qaadasho waayo cunnadani bislaan mayso ilaa iyo dabka aan saarno marka dabkii waa surrounding bannaankuu jiraa digsiga iyo cunnada ku dhex jirtaana waa systemkii waa gudihii marka endothermic waxaan u bixinaynaa waa falgal tamar u baahan falgalkaasi endothermic aan leenahay isagna haddii aan sheegno directionkiisa endothermic reaction falgalka la yiraahdo haddii aan sheegno directionka tamarta ay u socoto waa from the surrounding tamartaas waxay ka imanaysaa bannaanka
surrounding waxayna aadaysaa system shayadii falgalayay marka directionka waa lagu kala duwan yahay endodemigu waa from surrounding to the system cunno kariskoo kale markaan ka hadlayno dabku wuxuu xisaabsan yahay surrounding waa yahay sawirka haddaan fiirino energy gain during a reaction falgalka la yiraahdo exothermic endodemigu waa falgal tamar qaadanaya marka fallaarahan fiirinaynaa waa from the surrounding to the system waa yahay tusaalayaashan soo qaadana waxa kamid ah falgalada la yiraahdo decomposition reactions decomposition waxa la yiraahdo falgalada burburinta haddaan iraahno miiska galaaska inoo dhex yaalla hal la burburiyo de waa inaan inagu tamar isticmaalno laakiin noqon mayso miisku inuu iska burburo tamar ina siiyo noqon mayso waxa leena marka decomposition markaan maqallo waa burburintii waa inaan inagu tamar isticmaalno halkaas waxaan soo qaadanay calcium carbonate hadii la burburiyo waxa meesha ka soo baxaya calcium oxide iyo carbon dioxide falgalkaas waa decomposition reaction kana waxa lagu yaqaanaa reactantsku waa inay ahaadaan hal isku dhis product waxay doonaan ha noqdaan marka one reactant waa inuu falgal ku yeesho hadda kaas one reactant buu leeyahay waa calcium carbonate waa yahay tusaalaha labaad ee endodemiga waxa waa tusaalaha la yiraahdo photosynthesis falgalka la yiraahdo photosynthesisku ila islaan iyo qorrax la'aan ma dhaco waxa ugu wacan marka light energy tamar buu u baahan yahay waa falgal tamar u baahan tusaaleena saddexaad dissolving ammonium chloride in water cusbada loo yaqaan ammonium chloride in lagu milo biyo waa endodemic inta badan ammonium chloride dissolving in water waxa loo isticmaalaa waxa loo yaqaano kubadda cagta oo kale waxaan aragnaa marka ciyaartooyadu ay dhaawacmaan in shay baraf inagu aan ku sheegno aanan baraf ahayn in meeshii dhaawac uu ka gaaray lagaga qabto ciyaartooyga ama laga duldhigo waxay sheegaysaa meesha la duldhigayaa shayga la saaraya waa ammonium chloride in water waana falgal endodemiga meeshii marka la saaro tamar bay kala baxaysaa tamar bay ka qaadanaysaa hadhow ciyaartooygu wuxuu dareemayaa relief qabow buu dareemayaa waayo endodemigu waxaan yiri marka lagu taabsiiyo waa in meeshii la taabsiiyay qabow ay noqoto ammonium chloride in water change of state-ka oo isku beddelka xaaladaha ah sawirka meeshaan ku soo qaadanay waxaan ognahay from solid to liquid waxa la yiraahdaa melting waa dhalaalin from liquid to gas ama water vapor waxa la yiraahdaa evaporation sidoo kale from gas to liquid waxa loo yaqaanaa condensation waa qaboojintii from liquid to solidna freezing wajiyadaasi haddaan u eegno keeba endodemiga iyo keeba exodemiga tusaale ahaan melting markaan leenahay haddaan baraf soo qaadno oon rabno inaan dhalaalino de waa inaan qorraxda dhigno ama waa inaan dab saarno tamar baan gelinay sidaa darteed falgalka waxa meltingka la yiraahday waa add energy waa endodemic evaporationka haddaan ka hadalno oo umi bixi ah qorraxdan u dhigaynaa biyo haddaan umi bixinayno ama dabkaan ku daynaynaa tamar baa la gelinayaa waa endodemic tamar qaate evaporationkuna halka condensationka iyo freezingku ay ka yihiin remove energy in tamar laga saaro gas particles baa tamar laga saari si particleadii la isku dhaweeyo looga dhigo liquid waa exothermic condensation freezingkuna sidoo kale waa exothermic kana waa change of state-ka ciwaankeena ah first law of thermodynamics waxa loo yaqaano law of thermodynamics wuxuu sheegayaa xeerkaasi waa xeer inta badan energy-da ka hadla wuxuu sheegayaa energy can neither be created tamarta lama abuuri karo nor destroyed lamana burburin karo but can converted from one form to another laakiin waa la isku bedeli karaa halkaas inagu waxaan ka fahmaynaa marka energy of the universe is constant in falgalka la yiraahdo exothermic reaction-ku adduunyada korkeeda unan heat saa'ida ku dhalinayn maadaama aan exothermic waa tamar bixiye adduunkii heatkiisa waxba ka bedeli maayo falgalka la yiraahdo endodemic oo tamar qaate ah oran mayna hadduu falgalkani tamar qaatay heatka adduunka waxba iska bedelay laakiin waxaan leenahay energy of the universe adduunyada tamarteedu is constant way go'an tahay oo waa in cayiman waa yahay bal waxaan fiirinaynaa labada kalmadood ee ah enthalpy iyo enthalpy change labada kalmadood ee kala ah enthalpy iyo enthalpy change enthalpy markaan leenahay waxa la yiraahdaa total energy content of a reacting materials enthalpy change waa energy change waa tamarta isbedelaysa labada kalmadood enthalpy-ga lama cabiri karo laakiin enthalpy change-ga waa la cabiri karaa saa darteed waxaan leenahay kelmadda enthalpy is the total energy content of a reacting materials shayyadan falgalaya tamarta ay ka kooban yihiin baa la oranayaa enthalpy marka hadduu shaygu tamar bixiyo intaa yaree la bixiyaa la oranayaa enthalpy change hadduu tamar soo qaato intaa yar soo qaato la oranayaa enthalpy change
symbolka enthalpy-gana waxaa loo qaataa h capital halka enthalpy change-ga symbolkiisa loo qaato delta h delta oo u taagan change h-na waxay u taagan tahay energy taasoo macnaheedu ay tahay energy change waxaan leenahay markaa a special name magac gaara ayaa isgiven la siiyaa to the energy change tamarta isbedelaysa xilliga surrounding iyo systemka aan ka hadlayna taasoo ku dhacaysa the constant pressure this energy tamartaasi waxaa la oranayaa enthalpy change enthalpy change-gaasi waxaa loo qaadanayaa delta h delta waa Greek letter waa change h-tuna waa energy unitka tamartaasi waa kilojoule per mole waa yahay waxa meesha inoogu xiga enthalpy profiles wax la yiraahdo ama wajahada enthalpy-ga markaan doonayno inaan endothermic enthalpy sawirno ama exothermic enthalpy inaan sawirno sawir noocee ah ayaa buu qaadanaya enthalpy profiles ayaan oranaynaa waxaan ku horeynaynaa exothermic enthalpy profile wajahada exothermic sidee loo sawiraa waxaan ogaanaynaa marka wax la sawirayo waxaan soo qaadanaynaa xy axis-ki Cartesian plane-ki war bal la soco waxaan ognahay line-kaasi wuxuu noo ahaan jiray y maanta waxaan u qaadanaynaa h oo ah waxa loo yaqaan energy kan waxaan leenahay reaction pathway waa yahay halka markaan joogno waxaan ognahay halkaas in la oran jiray 00 ama in origin line-kaasi wuxuu u kordhaa marka y axis-ka laga hadlayo marka kor loo socdo kordhaa la soco tamartuna waa sidoo kale markaan kor u soconay kordhi haddaba hadduu falgalku exothermic yahay ka soo qaad halkaasi waa reactants halkaasi waa falgalayaashii reactants waa yahay haddaan doonayo maxsuulka inaan muujiyo kor u socon maayo haddaan kor u socdo wuxuu sheegayaa falgalka tamar baa lagu daray idan line-kani haddii kor loo socdo tamartu way sii kordhaysaa laakiin waxaan samaynaynaa down halkaasaan ku qoraynaa productiska oo sheegaya falgalkani tamar buu bixiyey halkaa markuu joogan waa inuu hoos u dhaco marka tamar bixiye halkaana waxaan ku qoraynaa delta h qiimihii tamarta oo wadata minus x minus number kilojoule per mole halbeegeedana waan raacinaynaa waa yahay kaasi waxaan leenahay markaa exothermic enthalpy change has a negative value waxaan siinaynaa qiimo minusa oo maxaan minus u siinay sanis maadaama energy is lost from the system ay tamartu ka lumayso falgalayaasha oo ina aadayso surrounding marka waxa laga go'ay waa systemkii saa darteed negative value ayuu qaadanayaa waxaan u qaadanaynaa delta h equal minus x kilojoule per mole sawirkaasina waa general frame kaan u sawirayno exothermic reaction-ka haddaan tusaale soo qaadanno waxaan meesha ku haysanaa methane plus oxygen produces carbon dioxide plus water delta h-na waxa la yidhi waa 890.3 equation-ka markaad haysato laba siyaabood baad ku sheegi kartaa inuu falgalkaasi yahay exothermic kow inaad fiiriso tamarta waxa la socda minus waa exothermic haddaad tamarta iska ilowdo oy maqan tahayba inaad fiiriso falgalkani waa combustion waa plus oxygen maadaama combustion yahay waa exothermic markaan sawirayno falgalkaasi waxaan samaynaynaa reactantiska halkaasaan ku qoraynaa halkaas waxaan ku qoraynaa CH4 gas plus oxygen oo gas ah halkaas waxaan ku qoraynaa tamarta 890.3 kilojoule per mole waan ku bedelaynaa halkan waxaan ku qoraynaa borodhageenaasoo ah carbon dioxide gas plus water halkaasaan ku qoraynaa kaasna waa markaan doonayna inaan sawirno falgalka la yidhaahdo exothermic reaction-ka profilekiisa sawir ahaanna waa ka halkaa inoogu muuqda ka u dambeeya iyo tusaalaheena dambe endothermic enthalpy profile hadduu falgalkeennu yahay endothermic sideen u sawiri karnaa endothermic markaan sawirayno waxaan leenahay endothermic wuxuu leeyahay qiimo balaas ah muxuu qiimo balaas u yeeshay endothermic enthalpy change have a positive value qiimo balaas la siiyaa sababta loo siiyaa waxay tahay energy is gained by the system tamar baa la gelinayaa systemka oo surrounding ka imanaysa marka waa tamar qaate positive kii horena muxuu ahaa tamar bixiye negative markaan doonayno enthalpy change-ga endothermic inaan sawirno waxaan soo qaadanaynaa Cartesian plane-keennii waxaan idhi wuxuu ka kooban yahay xy axis halkaas waxaan u qaadanaynaa h waa energy halkaas waxaan u qaadanaynaa reaction pathway marka ka aan sawirayno endothermic waa tamar ku daris ama waa tamar qaate falgalkaasi haddii halkaasi aan u soo qaadno waxa loo yaqaano reactants meesha doontaad ka cabiran kartaa halkaasaad qabsan kartaa haddaan halkaasi niraahno falgalayaashii weeyaan productisku meesha ay ku sawirmayaani waa in reactantiska ay ka sarreyso waayo tamar baa lagu daray line-kaasi haddii tamar lagu daro waa inuu kor u socdo waxaan leenahay marka
products ku halkaas ay ku sawirmayaan maxsuulku products halkaana waxaan ku qoraynaa delta H plus y kilojoule per mole oo balaaskaas waa maxay waa tamar ku daris conclusion wuxuu noqonayaa marka waa exothermic hadii laga hadlayana reactantiska sareeya oo productka hooseeya endothermic hadii laga hadlayana reactantiska hooseeya oo productka sareeya tusaaleena meesha inagu qoran wuxuu sheegayaa marka calcium carbonate decomposition keeda inaan ku sawirno in waxa loo yaqaan profile tamarta meeshaan ku haysana waa balaas 572 kilojoule per mole laba siyaabood oo ku sheegi kartaa falgalka inuu endothermic yahay kow tamarta laba inuu falgalkan decomposition yahay oo hal reactant xagga hore haw noo yaalo waayahay markaan sawirayna marka halkaas waxaan ku bedelaynaa reactantiskii reactantiskan waxay ahaayeen calcium carbonate halkaana waxaan ku bedelaynaa tamartii waa balaas 572 kilojoule per mole halkaana waxaan ku bedelaynaa productgii calcium oxide oo solid ah plus carbon dioxide marka endothermiga iyo exothermigu qaabkaasi u kala duwan yihiin marka profile-ka laga hadlayo exercise-ka ku soo gabagabeynayna waxa weeyaan classify the following processes exothermic iyo endothermic u kala saar waa evaporation crystallization melting making magnesium oxide from magnesium and oxygen making copper oxide from copper carbonate su'aasha labaad draw waad sawiraysaa enthalpy profile-ka waad sawiraysaa saddex equation baad haysataa saddexdaba sawir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaas inoogu dhan yahay cashirkeennii iyo chapterkeennii afraad cashirkii koowaad